وين سلام صاحبيال maanta waxa kula seedana film aad u xiiso badan oo magaciisu yahay Bafani inta muuqaal guda galin waxa ku xasuusinaya in muuqaalka la excited saaxiib nagu cusub hadii aad tahay subscribe soo channelka gambaleelkana furo filmkan waxa ku bilaabanaya qoftan quruxleeda ah oo maqaayadeeda ku sugayso ninka jeclay oo ah jilaa iska yar oo caan ahayn kadib uu iimaanaya wuxuu soo galaya maqaayada ayadan wuxuu keenaysaa cuntada oo jeclaa kadib asaga wuxuu bilaabaya inuu cuntada oo cuno ayadan kor ay fiirinaysay ayadoo ismashquulinayso markuu cuntada dhameysto kadib uu baxaya asagana lacagta miiska ay u saaray ayadoo doon camal ah qoftina ayadoo fiirinaysa lacagta ayuu soo laabanaya wuxuuna ku dhahayaa kaliya adii kaama helin ee jaceelkaada ay ugu dhacay waana ku jecelahay ayadan waxa ku dhahaysaa ma rabtaa inay isguursano asagana waxa ku dhahayaa haa diyaar waay sanada kadib markay kasoo wareegato asaga si hoos oo qarsoodiya ayuu ula noolaa asagana wuxuu noqday atooro weyn oo caan ah kadib uu soo diyaarinaya markuu qolka soo baxo wuxuu arkayaa qoftii ayadana murug hayso dhulkan iska fadhisay tufaaxay iska cunaysay asagana markuu xaalad qiimeeyo uu ka tagayaa ayadan labadooda cunugay isku dhaleen markuu u yimaado cunugeeda wuxuu ku dhahayaa aaba aaway ayadan waxay naaqsneed ma u jawaabayso kadib asaga TV-ga channelka ayuu ku bedelayaa waxayna arkayaan ninkeeda TV-yada haysto oo kala kacday oo atoor caan noqday oo filmaantiisna hawada u galeen wariyadana waxay dhaheen in atoorahan warar badan oo been abuur in la ka sheegay inuu qabo naag oo qarsoodi cunugu dhashay laakiin hadda ugu dambeyn wuxuu shaaciyay inuu guursan doono gabar qurux badan oo ka dhalatay cid caan oo taajiriin ah ayadan markay warkaas maqashay qolkeeda ay galaysaa ayadoo murugaysan kadibna isdilaysaa wiilkeedna wuxuu arkaya iyadoo isdilayso sanada kadib wiilku weynaanaya waana atooreena filmka magaciisuna waa Rock wuxuuna soo aadayaa meesha cusub ka shaqo bilaabi lahaa asagana wuxuu ku shaqeynayaa meesha baaking baabuurta maalintiisii koowaad waxa lagu bilaabayaa in midkood taajir ah inuu bahdilo kaliya qalad yar ka dhacay kadib wuxuu madax u gelinayaa xag baaking la dhigo kana waahan asagana shirkadda ayuu ka shaqeeyaa wuxuuna jecel yahay inuu sheekooyinka uu qoro kadib Rock soo u nasto agtiisa ayuu soo fadhiisanayaa kadib han wuxuu arkayaa Rock inuu wad fanaanada ku sawiran tahay qoftoo taageero han wuxuu weydiinayaa qofkuu yahay asaga Rockna wuxuu ku dhahayaa anay shaqaale cusub ahay han uu soo istaagayaa wuxuuna ku dhahayaa waan aqbalay inaa saaxiibkayga aad noqoto qof walba qoftan fanaanada kugu sawiran taageero kaas aniga waa saaxiibkayga dhinaca kale waxa arkayna Sari asxaabteeda oo soo galeen qaybtii qeydad ku cunaa shaqaalaha waana gabdhaha ugu qurxan ee ka shaqeeya shirkadda shaqaalaha dhan ay jecel yihiin hal mar ay soo fiirinayaan shaqaalaha oo dhan han Rock agteeda ayuu keenayaa wuxuuna u sheegayaa kan inuu yahay saaxiibkiisa cusub una baraya kulligooda han wuxuu asxaabtiisa ku dhahayaa shaqada kadib saaxiibkayga cusub soo dhaweyn ayuu sameeynaynaa Rockna wuxuu dhahayaa aniga ma idin raacay han hal mar ayuu ku qeylinayaa dadka dhan hal mar ay soo fiirinayaan wuxuuna weydiinayaa sababta uu diiday Rockna wuxuu dhahayaa yaanyurtii joogto waa inaan cuntadeeda siiyaa waqtigeeda Rockna markuu kasoo tago asagoo wato scooter oo dhagaan dhago ugu jiraan oo hees u daaran tahay sidoo cabaar u socday waxa meel mugda ugu hor imaanaysa gabar asagana oo ka leexanaya markuu gadaal u soo fiiriyo wuxuuna arkayaa qof tooba daboor oo iska qurxan qoftaas qof kale ma aha waa atariishada filmka magaceedana waa Mii kadib asagoo la yaaban qoftaas han agtiisa ayuu soo fadhiisanayaa wuxuuna weydiinayaa han qoftaas qaybta hoos joogto qofkay tahay han wuxuu ku dhahayaa waa qoftii dinsoorto keed ma soo aragtay shaqaalaha inta ka shaqeeyaan aanaaneystas u bixiyeen gabadhaas walxumadeeda dadka cabsadaan sida inay arkeen dinsoor qoftaasna waxaan igu soo gaartay inay shaqada interviewga markay soo dalbanaysay inay keentay dhibcaha ugu badan laakiin qaabkeeda iyo falxumadeeda si aysan macaamiishu ugu cabsanin marba meel ay u bedelaan gabadhaasna qof raba ma lahan sidii u bedelayeen ay u wadeen qaybta hoose ayay geeyeen ayadana meeshaas ay joogtaa maba ka tagin ayada shaqada si kasta ahaataba qoftaas nolosha nasiib uma lahan Rockna markuu shaqadiisa ku laabtay ayadoo maantana fiirinayay aanoo la yaabana koroo kala socday kadib ayadoo qashinka dhulka aruurinayso ayuu arkayaa Rock kadib qashinka ayuu la aruurinayaa kadib ka shaqada ka soo baxaan aan Rock waxay imaanayaan baarka aan wuxuu ku dhahayaa adig gabadhaas ma ka heshay Rockna wuxuu dhahayaa may laakiin uu naxariisanayo waxaan rabaa inaan si fiican ula dhaqmo gabadhaas aan wuxuu ku dhahayaa laba bahano gabadhaas adoo naxariisanayo inaa sii dhaawacdid ilaa intee sii soconaysa inaa si wanaagsan ula dhaqantid taas ma sii socon doonto waqti dheer gabadhaas marka u dambayso dhibaato uu keenaysid miya hadday gabadhaas dhibaato ku filan haysataa noloshana ay ku adag tahay ma ogtaa dadka noocaas oo kale ah waxa dhibo in dadka ay u arkaan si daciifnimo ah kadibna u naxariistaan haddaaba gabadhaas ka helin oo aadan jecleen gabadhaas ka fogow maalintii xigtay Rock markuu shaqada yimaado wuxuu arkayaa miyuu alaab culus wado oo shaqaalaha kale ku shaqatareysanayaan oona dhahayaan dinsoortu waa tan oo jinka u ekeed Rock asagana intuu meesha fadhin waayay ayuu alaabta soo qaadayaa alaabtan waxay keenayaa meel xaflad muusiga lagu qabay kadib asaga waaya wuuna soo raadinayaa wuxuuna arkayaa in biyaanada la garaacayo in meel kore ay kala socotay ayadana way niyeysatay niyadda ay garaacisay biyaanada kadib agteeda ayuu imaanayaa marka indhaha kala furto waxay arkaysaa inuu asagana niyadda kala socday biyaanada una garaacayay kadib ay soo raacayaan ayadana u mahadcelinay sidoo u caabiyay asagana magaciisa u sheega ayadana magaceeda u sheegay ayagoo wada hadlayaan waxa uu imaanaysa Sarah markay aragta Mii meesha dhan way ka tagaysaa maalintii xigtay marka la gaaro waqtiga qadada Rock cuntadiisa ayuu soo qaadanayaa wuxuuna la soo fadhiisanayaa Mii miiskeeda asagana markuu arko cuntadeeda ayuu weydiinayaa kadib markay u sheegto mid kamid ah ayuu ku dhahay mid dhamin karaa ayadana markay geesaa fiiriso waxay arkaysaa dadka oo dhan inay soo fiirinayaan ayada Miina cuntada ay xiranaysaa meeshana orod ayuu ugu tagaysaa Sarah asxaabteeda waxay ku dhahayaan labada ama xiriir la ka dhaxeeya oo isgaadgaadooyaan Sarah ku dhahaysaa ma macquul ma falxumadaan waxayna weydiinaysaa han wax ka dhaxeeya labadooda aan wuxuu sheegayaa in labadooda inay yihiin qaraabo ayagana waxay ku dhahayaan ma way isu ekabay labadooda aan wuxuu ku dhahayaa labadooda qaraabo meel kore ka yihiin sikidisana meeshan ugu kulmeen ayaga habeenkii marka la gaaro Rock maqaayada ayuu imaanayaa isaga kaligiisa markuu cabaar meesha joogo kadib gadaashiisa ayuu fiirinayaa wuxuuna arkayaa inay joogto Mii waxaana baarka keenay han kadib wuxuu ku dhahayaa asmartiyeen kursiga isku fadhiiso ayadana wuxuu ku dhahaysaa suuliga u baahanahay kadib ay aadaysaa markay gasho kadib Rock wuxuu soo ordayaa han wuxuuna ku dhahayaa adii ma sameynaysaa han wuxuu ku dhahayaa qofta ay madax adag tahay
meeshaan si dhib badan keenay kaliya u sheeg wax maskaxdaada ku jiro oo dhan kadib labadoodu way soo horfadhiisanayaan asagana horka ayuu bilaabayaa wuxuuna ku dhahayaa wax maskaxdaada ku jiro waxaa waaye dhinac kale ayuu taagnaa wuxuuna si hoos ku dhahayaa u sheeg qoftan wax maskaxdaada ku jiro oo maskaxdaada qasay inay ayada tahay roog wuxuu ku dhahayaa mii ma ogina fiican tahay inaa ku nool noocaan maalintii part-time shaqeeya miina wuxuu ku dhahaysaa maxaa part-time u shaqeysaa maalintii roogna wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan aado wadanka Iceland markaan tababarka military soo dhamaystay guriga waqti badan kana siinaa ku qaatay waxaana YouTube ka daawan jiray muuqaalo badan kadib waxa ii soo galay muuqaal meel ku taala Iceland oo rainbow side u iftiimayo side u qurux badan si aan meeshaas ugu safro waxaan u baahanahay lacag badan markaas kadib shaqadana part-time bilaaway noloshana way iska adag tahay maalintii maalinta ka dambayso riyooyin aan lahaay laakiin kuma guuleysanin inaan rumeeyo riyooyinkaas miina waxay weydiinaysaa wax kaloo rabay inuu sameeyo roogna wuxuu ku dhahayaa aniga dansigaan jeclaay laakiin asagan dhaxa ugu tagay nafteedna waxa ku dhahay maalin waxaan iska toosi doonaan waxa toosooyin uma jeedi mana u malaynaayo inay wax isku toosi doonaan miina waxa ku dhahaysaa waxa sameynaysid maxaa uu malay weysay inay tahay meel isku meel gaar ah loogu dogo faraska oona tahay meeshaas meel lagu nasto waxayna tusaale ugu soo qaadanaysaa fardaha orodka badnaay ee lahayn hindida cascas ee Amerika markay faraska fuulaan sidee u socdaan mararka qaar faraska istaanji jireen markay ka soo degaan waxay gadaal u fiirin jireen jidkii dheeraa ee soo mareen ujeedkoodana ma ahayn inay nastaan ayaga ama faraska inay nasiyaan balse waxay sugayeen ruuxdooda oo laga yaabo inay kasoo tageen eena kasoo dahday ayaga markaas markay dareemaan inay bilowdo ruuxdooda inay ka daba timid inay soo gaartay markaas ay dib u bilaabi jireen safarkooda iyo socodkooda hadday jiraan wax naftaada ay rabto kaliya sameey waxaa rabto oo aad jeceshahay adiga waxaadan rabin ka tag markaas haana markay maqlaan warkeeda way la yaabayaan asaga iyo ninka maqaayada leh kadib xaafadeeda ayuu keenayaa ayadan orod ayuu ku fuulaysaa jaranjarada markay soo fiiriso isagana orod ayuu xaafadiis ku aadayaa kadib markii subaxdii la gaaro miya iyadoo faraxsan ayay shaqada soo aadaysaa markay jaranjarada kasoo degto waxay isku dhigaysaa gaariga wada qiica magaalada lagu shubo kadib shaqada ayuu soo ordaysaa kadib lugta u baxayso dhulka ayna ku dhacaysaa kadib shaqada ayay imaanaysaa ayadoo baagada meel dheer kasoo dejinayso oo gaari la roog ayaa usoo dejinayo oo caabinayo isagana marka oran gacanteeda wuxuu weydiinayaa waxa gacanta ka dhaawacay miina ku dhahaysaa saaka dhul ku dhacay saasay ugu soo gaareen dhaawacana umalayna kadib markay kasoo tagto ayadoo wiishka saaran oo alaab qaybta kor u wado oo faraxsan wiishka miyaaradiisa ay isku fiirinaysay wiishka markuu furmo waxba ka hor imaanaysa seera waxayna wejiga u marinaysaa make-upkeeda ee wadatay waxayna ku dhahaysaa waa naxday miya wejigaada saa'idu u guduutay haana noo sheegay roog inay qaraabo aad tihiin maraa wada cunteyn doonaa kulligeena bokuska ay ka qaadanaysaa wayna ka tegaysaa miya ayadana hadalkeeda ayay la yaabaneed kadib markay shaqada kasoo baxday habeenkii roobaa da'ayay miya ayadana ma wadin dalada roobka kadib waxaa kasoo daba ordaya roog daladiis ayuuna roobka ugu dhigayaa miyana waxay ku dhahaysaa daladaada uma baahni roogna wax ku dhahayaa oo ujeeda inaa u baahan tahay dalada ayadan daladiis way diidaysaa markay ka tagto asagana dalada ayuu ka dawadayaa asagana wuxuu weydiinayaa inay dalad ay haysato miyana waxay ku dhahaysaa waan haystay laakiin waa iga dhuntay mar walba aan soo gato mid cusub mar walba ayadoo iga dhunta lay arkaa roogna wax ku dhahayaa inay qoydi roobka oo la qabsatay miya miyana waxay ku dhahaysaa dadka shirkadda hadday arkaan daladayda wayba iska qaataan inaa roobkan socdo lama aamishid ayaa ka fudud la macaamilka dadka roogna wax ku dhahayaa ma rabta inaa ku geeyo meel qurux badan kadib wuxuu keenayaa meesha heesaha qadiimiga laga helo markay gudaha soo galaan heesay rabin ay raadinayaan labadoodana hal hees oo isku mid ayay dooranayaan isagana wuxuu bilaabayaan u sharxo heesaha noocyadooda si u kala baxaan miyana waxay ku dhahaysaa daansiga aada ugu fiican tahay waxaa maalin hore arkay adoo si fiican u ciyaaraysid waana ku fiican tahay markaa ka tegin ana isdhiibin xirfad fiican ayaa leedahay kadib gudaha ayay gelayaan heestay soo doorteen ayay bilaabayaan inay dhegeystaan labadooda kadib waxay wada imaanayaan busteejada baska asagana wuxuu ku dhahayaa nambarkaada ii qor miyana waxay ku dhahaysaa taleefon ma haysti hadda kora mid ka hore u haystay asagana mar hore iska tuuray roogna wuxuu dhahayaa taas dhib ma lahan wuxuuna soo bixinayaa sharootada dhaawaca gacanka soo gaaray iskaaga dheji ayada markay la yaabto wanaagiisa waxay ku dhahaysaa maxaa sidaan oo dhan oo wanaagsan aa iila dhaqantaa ma aqaan sida ula macaamil lahay qaabkaas fiican aa iila dhaqmaysid roogna wuxuu dhahayaa taas wax dhibaato ku jir ma lahan adiga keliya sida fiican kula dhaqmay adigana sidaa wanaagsan la iila dhaqan waana halaas keliya wayna fududahay kadib sharootada ayuu siinayaa kadib miimika xaafadeeda ay tagto ayada aaday ugu faraxsaneed kadib sariirteeda ay isku tuuraysaa subaxdii marka la gaaro roog shaqada markuu imaad wuxuu arkayaa miinay u dhigtay cuntadoo jeclaa kursiga isagoo cunaya waxa uu imaanaya ahaan wuxuuna ku dhahayaa gabadha marku aqbashay mana u dirtay emojiga qalbiga roogna wuxuu dhahayaa maxaaba qoftaas wax u diraa taleefon ma haysatee aana orod ayuu ugu tagayaa wuxuuna usoo tuuraya laba gacan ee labadooda ku wada hadlaan roogna iyadoo uu keenayaa miiska ayuu saarayaa kadib mii way qaadanaysaa markay geeska soo fiiriso roog asana dhinacaas kale ayuu taagnaya wuxuuna u sheegayaa inay signal toonintooda inay isticmaasho sidii labadooda u wada hadlaan kadib ayadoo shaqadeeda ku jirto ayuu la soo hadlayaa wuxuuna ku dhahayaa waxaan rabaa inaan wax yar is aragno kadib markay u timaado wuxuu keenayaa qaybta kore ee shirkadda wuxuuna tusayaa rainbowga oo jeclaa markay kasoo laabtaan qaybta kore ayagoo wiishka saaran waxaa kor imaanaysa seera kadib waxay keenaysaa maqaayada sida kulligood wax wada cunaan ayagana waxay ku dhahayaan adigii roog qaraab dhinacay ka tihiin dhinacyadiis ma iska soo gashaan aan wax ku dhahayaa haa meelahaasay familka yihiin haddana roog waxay ku dhahaysaa maxaa maqlay inaa gabar xiriir alla leedahay gabadhaas quruxleemiya roogna wax ku dhahayaa quruxleey waay qofta isla socono waana qof originaal ah aan qurux gacan ku samaysa aan lahayn sidiina camal marka dadka kale la barbar dhigo qofta dad kale way ka duwan tahay marka qoftaas la joogo waxaan is arkaa nafteeda dhinaceeda inay daacad u tahay oo daacadnimadaas iskiyayeel ahayn dabeecad ahaan ma ihi qof hadal badan laakiin markaan la joogo wax badan ayaa hadlaa anigoo aan is ogeyn waxaan u malaynayaa sababtaas darteeda inay tahay inaa ka helay gabadhaas mii ayada markay hadalkaas maqasho ayadana qof kale ay naqanaysaa cuntada isku boojeynaysaa kadib mii banaanka ay soo baxaysaa ayadoo ordayso oo xanaaqsan roogna ka daba imaanaya miina wax ku dhahaysaa adiga xaaladaada ku ogolaanaysaa inaad sida rabtaa u hadasho lacag markaa shirkadan ka shaqaysato adigu waa bixi rabtaa
laakiin aniga waxa igu qasbay inaan u dulqaato shirkadaas dhibkeeda shaqaynteeda si aan lacag yar aan u helo oo aan ku noolaado. Roog asagana waxa ku codsanaya inay karaal ahaato kadib labadoodu is soo raacayaan. Asagana waxa ku dhahayaa hal mid aan ka codsanaya inay ii samayso adoo mar walba aqlad samaynin ayaa mar walba madaxaad hoos geysaa. taasna ma fiicno, madaxa waa inaa kor u qaadaa saan camal. ayadan sidoo dhahayay samaynaysaa madaxeeda ayaa kor u qaadaysaa. maalintii xigtay roomka shaqada yimaado miima imaanaya shaqada asagana meesha cido ayaa la noqonaysaa. habeenkii guriga markuu yimaado wuxuu bilaabayaa inuu tababarka daansiga inuu qaato. markuu daalo asagoo dhulka iska jiifo ayay soo wacaysaa. markuu qabto oo codkeeda maqlo hal mar ayuu soo boodayaa. waxaan ku dhahaysaa saa inaan kusoo wac ma ahayn, waxa igu qasbay inaan ku laabto magaaladeedii hore marka iga raali noqo. roogna wuxuu dhahayaa raalgelinta badan jooji. kadib wuxuu bilaabayaa inuu saa'id ah u ooyo. miina ku dhahaysaa maxaa kugu dhacay, haddaa kuu imaanaya. kadib ay soo ordaysaa tareenka ayay soo raacaysaa. markay kasoo degto xaafadiisa ayadoo ordaysa ay soo aadaysaa. roog asagana banaanka ayuu ku sugaayay. kadib agtiisa ay orod ku imaanaysaa. kadib way fadhiisanayaan meesha waxa ku wada cunayaan labadooda. kadib maalintii xigtay markay shaqada yimaadaan ayagoo gacan ku wada hadlaayaan. roog wuxuu ku dhahayaa mar walba waxaa maleegi jiray inaan ahay qof kaliya ee surun ugu nool noloshiisa. waxaana dareemi jiray dad kale inay feeg ee yihiin, laakiin markaa kula joogo waxaan dareemaa inaan ahay labadeena dadka sida runta ugu nool nolosha. sidaas darteeda aniga waan kaa helay waana ku jecelahay. ayaga labadooda maxaa hadalkooda dhegaysanayeen shaqaalaha oo dhan, waxayna heleen signaalkay ku wada hadlayeen labadooda. mii ayadan waxa u sheegaysaa in ayadana ay jeceshahay shaqaalana markay maqlaan ayadana ay jeceshahay. hal mar ayay wada qaylinayaan kulligooda. kadib markay imaadaan hoolka cuntada lagu cuno roog waxaa kor imaanayso miyo ordayso. shaqaalana way foodeynaayeen wayna ku qoslaayeen. seeri asxaabteeda ayagoo wishka saaran oo xanta mii haayaan waxaa kor imaanaysa mii. seerna waxay bilaabaysaa inay afka rooseeto u maraysa mii. waxayna ku dhahaysaa hadda kadib waa inaa meega fiican marsataa sababta ah xiriira qofka la leedahay. mii ayada nafi iska raadinaysaa. waxayna ku dhahaysaa aniga wax qalad ah maa sameeyey, adigana iska jooji iska dhaadhicinta badan inaad tahay qof keliya ugu fiican meeshaan. seeri asxaabteeda yaabayaan. maalmo kadib roog tababarka daansiga ayuu bilaabayaa. kadib waxaa la gaarayaa maalin tijaabada laga qaadi lahaa. guddigana qiimeynaya ciyaartiisa. aana keligiisa ayuu joogay maqaayadda. waxayna ahayd maalintan dhalashadiisa. asagana buuga qoraay. kadib nalka ay la daminayaa. waxaana baarka soo galayaan mii iyo roog oo wadaan toortada dhalashadiisa. aanay u keenayaan. aan toortada dhalashadiisa ayuu afuufayaa. kadib markay wada fadhiistaan aan waxa ku dhahayaa intaas ii duqoobin waa inaan lacag badan sii shaqaystaa. haddaan ku khasbanaado maalintii waa inaan ka shaqeeya 3 shaqo ama 2 shaqo. anigana waxaan qori doonaa buug sheekadiisa fiican tahay sida u noqdo mid kale ugu iibsiga badan yahay. roogna wuxuu ku dhahayaa aniga waxaan rabaa inaan aado Iceland aniga iyo mii si wada jir ah. taas kaliya riideeda ah. maalmo kadib waxaa arkaynaa haanna u yimaadeen walaalihiisa oo dhala aabihiisa. waxaan ogaanaynaa shirkaddan uu ka shaqeeyaan inuu aabihiisa uu leeyahay, laakiin asaga si saaxiibtimo ayaa looga dhalay hooyadiisa. walaashiisa waxay ku dhahaysaa kuri iskaaga tag, waxaan ku sii doonaa lacag walba aa rabtid. haanna wuxuu ku dhahayaa waddankan iyo shirkaddaanba meela ugu socdo ma lahan, fikradaasan madaxiina ka bixiya. walaashiisa waxay ku dhahaysaa inta maxaa ugu soo laabatay, waxaan dhamma waxa u samaynaysaa si aad hooyadaada ugu aargudid. haanna markuu hadalkaas maqlo asagoo murugaysan oo ka xun warkaas wuxuu imaanayaa baarka. roog asagana jaamacadda ayuu galay. kadib asagoo isbaraya ardayda cusub waxaa soo wacaya haan. roogna maka qabanaya taleefanka. haanna murugtiisa qof kaloo u sheegto oo la qaybsado ayuu raadinayaa. wuxuuna wacayaa asxaabtiisii hore. ayagana markay ka qabtaan taleefan kadib ay ku duminayaan. waxa la hadla markuu waayo ninka baar kale ayuu ka codsanayaa inuu la soo fadhiisto oo la sheekaysto sidoo cabitaan u wada cabaan. ninka maqaayadda wuxuu ku dhahayaa aniga mashquul ah cuntada biri ayay diyaarinooyaa waana waqti dambe ee gurigaada iska aad. haanna maqaayaddu iskaga soo tegayaa. markuu guriga yimaado wuxuu isku daldalayaa cabitaan fara badan iyo kiniiniyaal. wuxuuna rabay inuu isdilo. muusigina waa dheeraystay. haanna asagana dhulka ayuu yaala isagoo qaawan. kadib markii la gaaro subaxdii shaqaalaha oo dhan asagay warkiisa haayeen wayna la yaabanaayeen inuu dhalay milkiilaha shirkadda. asagana lagu dhalay si saaxiibtinimo ah siday warkiisa kuu sheegayeen. waxaa maqlaysa mii waxay haysay ayay dhulku daynaysaa ayadoo naxsan. kadib ayadii roog waxay imaanayaan isbitaalka. haanna asagana xaaladiisa aad ayay u xumeed, maskaxdiisana ma joogin. markay arkaan way ka naxayeen labadooda. mii ayadana way naxsaneed ilaa tareenka dhexdiisa ayay ku oynaysay. dadka tareenka saaran oo dhan ayada ooyinteeda ayay la yaabanaayeen. roogna wuxuu ku dhahayaa ooyintaan badan naga joojiye. markay ooyinta ay jooji weysay roog hal mar ayuu ku qaylinayaa inay joojiso ooyinta. maalintii xigtay roog jaamacaddiisa ayuu ku laabanayaa. kadib habeenkii ayuu soo wacayaa. wuxuuna ku dhahayaa saa'ida kuugu xiisay gabadha hadda asxaabteeda aan ku baro oo waqti aan wada qaadano iyo imo waa ku suga. kadib mii dharkeeda midka ugu qurux badan ayay soo baxsanaysaa. kadib make up ayay marsanaysaa. ayadoo rooseetada marsanayso hal mar inta isla yaabto ayay miyaarad cabaar iska fiirinaysaa. kadib roog asxaabtiisa ayuu imaanaysaa. asagana wuxuu tusayaa qaabkay tiimkiisu wada ciyaaraan. kadib ay soo raacayaan. asagan gurigoo degan yahay ayuu tusayaa. ayadana waxay ku dhahaysaa waan baxayaa wayna ismacsalaameeyaan labadooda. roog asagana jaamacaddiisa ayuu isku sii watay. miina sidoo uu wacay wuu ku daalay mana qabanaysa taleefanka. kadib wuxuu imaanayaa gurigee degneed. dariska ayuu weydiinayaa. ayagana waxay ku sheegayaan inay gabadhaas inay inta ka guurtay. roogna wuxuu weydiinayaa meesha u guurtay inay yaqaanaan. ayagana waxay u sheegayaan inay ogeen meelay aaday. kadib maalmo kadib warqad ay u soo diraysaa. waxayna dhahee iga raali noqo maadaama hal mar lay waayey anigoo aan kuu sheegin meeshaan aaday. waqti fiican ha raadi sida aan kuugu sheego laakiin waa ka caajisay taas. haan fiican yahay markaan maqlay kadib inuu haan isdil rabay. waxaan bilaabay inaan mar labaad aan ku dhex fikiro mugdigii madooba. markaan iskoolka dhigan jiray ardayda iskoolku ay fogeyn jireen ayagoo cunsuryeynayaan. anigana waxaa ii fududeed inaan qalbigay aan ka xirto aan iska indha tiro ayaga. waxaan ku noolaa nolol sidii inaan ahay qof aan jirin camal. mugdigaas dhexdiisa oo aan ku dhex jiray qof haba yaraatay igu soo dhex raadiyey ma lahan. kadib adigaa kula kulmay mugdigaasni adigaa isoo dhex badbaadisay oo iga soo saartay mugdigaas. waxaan ogaaday qof in la jeclaado inay kasii fududahay sidaan usii malaynayay. taasna waxay ahayd mid farxad badan oo aan la heli karin. laakiin kadib markaas markay badatay waqtiyadii
rajadii farxadda badneed waxaan dareemay dareemada kala duwan inay soo galeen qalbigayga walwalkiina sayd ayuu noqday si aan la qiyaasi karin kadib maalina ogaaday inaan kaa fikiro maalintaas ilaa aan ka seexanayo waxaana soo toosaa anigoo saa'id kuugu xiisay taasna sababta aan kaaga tagay maalmo kadibna Roosh jaamacadiisuu kusoo tegaya shaqadiisii hore ayuu kusoo laabanaya kadib kursiga siinada ayuu imaanaya meeshan waxaa fadhisay Seera markay aragto asaga waxay ku dhahaysaa jaamacada iska diiwaangelisaa gasho ma aho maxaa dhacay inta maxaa samaynaysaa Roogna wuxuu dhahayaa waxbarashada jaamacadda waqtiyada iska joojiyay Seera waxay weydiinaysaa wuxuu qabanaya shaqada markuu ka baxo kadib Seera baarka ayay keenaysaa meesha ay ku baashaalayeen labadooda markay baarka soo baxaan wuxuu fiirinayaa hadda ka hor meesha muusiga isla imaanayeen mii Seera waxay weydiinaysaa ma rabtaa inaan meesha galno kadib meesha muusiga ay soo galayaan Roogna wuxuu soo qaadanayaa heestii isla dhageysanayeen mii kadib gudaha ay soo galayeen labadooda markay heesta cabaar wada dhageystaan Roog wuxuu soo xasuusanaya mii sida heesta u qaadaysay maalintaas kadib Roog wuxuu bilaabayaa inuu ilmeeyo Seera waxay arkaysaa in ilin ay ka socoto Roog kadib uu ka tagayaa Seera ayadana la yaabaneed ilinta ka socotay maalintii xigtay Seera waxay u tagaysaa maamulaha ka sare waxayna ka codsanaysaa inuu tuso feelka mii ee shaqada kadib Roog ayuu imaanaysaa oo wax cunayay waxayna miis ku saaraysaa ciwaanka mii ay degan tahay kadib Roog markuu yimaado guriga fariin ayuu qorayaa mii waxaanu ku dhahayaa waan ku xiisay waxaan rabaa inaan is aragno 4 December 21 galabnimo waxaan kuugu sugi doonaa busteejada baska ee magaaladaada haddii aad rabin inaad ila kulanto dhib malahan ha imaanin laakiin aniga waxaan rabaa inaan is aragno markii la gaaro maalintii uu balamiyey Roog baska ayuu soo raacayaa magaaladan baraf badan ay ka da'ay wadadan way xirneed baraf dartiisa shilal badanna way ka dhaceen wadada Roogna saacada ayuu fiirinayay markuu arko in wadadan waqti badan xirnaan doonto baska ku soo degaya uuna soo ordaya busteejadu ku balamiyey ayuu orod ku imaanaya mii ayadana meeshay ku sii sugaysay kadib maqaayada ay imaanayaan ayadana waxay weydiinaysaa aan sidoo noqday Roogna wuxuu dhahayaa aan xaaladiisu soo fiicnaanaysa miina wuxuu dhahaysaa hadda ma baxnaa baskii u dambeeyay ee baxaayo si uusan kaaga tagin Roogna wuxuu dhahayaa sidaan ugu dhaqsiyaha badan waan ku baxeenaa wax yar suug rabtaa inaan wada ciyaarno kadib uu soo istaagaya gacantiisa ayuu soo taagaya ayadana gacantiisa ay qabsanaysaa kadib ay wada ciyaarayaan kadib labadooda markay cabaar wada ciyaaraan kadib hab ayuu siinayaa kadib waxay keenaysaa busteejada baska kadib baska oo imaanaya ayadana waxay ku dhahaysaa naftaada ilaali Roogna baska ayuu raacayaa baska markuu cabaar sii socdo uu istaagaya Roogna uu kusoo degaya dhinaceeda ayuu usoo ordaya waa isku soo laabanayna labadeena waana ogaa sidaa dareemaysid laakiin ma awoodi inaan kaa tago waana ku jeclahay goormee kulmaynaa 3 December 3 galabnimo ayaan kulmaynaa maqaayadii aan tegi jirnay kadib meel qurux badan ayay aadaynaa cuntona soo wada cunaynaa miina wax ku dhahaysaa kawar markaas haddaan wada aadno xaflad muusig ah Roogna wuxuu dhahayaa waa fikrad fiican xafladda muusiga aadaynaa haddii aan markaas imaawayso ku sugi doonaa ilaa aan ka noqonayo baraf kadib wuu shuminayaa wuuna kasoo tegaya baska ayuu soo raacayaa maalmo kadibna haan wuu soo caafimaadayaa miina maqaayadii ku balameen ayay imaanaysaa sidii cabaar u sugaysay Roog habeenkii ayaa lagu gaarayaa kadib waxaa kasoo wareegsanayso 5 sano kadibna waxaa la wareysanayaa haan oo buug ka qoray qisadooda jecel labadooda haan wax ku dhahayaa waa qiso jecel waa laba qof aan la kulmay sanado ka hor aniga markaas ma aqoonin sida loo noolaado ama nolosha inay mudan tahay in lagu noolaado aniga niijo badan ayay haystay sheekada buugan wuxuu ku saabsan yahay koriinkay nolosha aan ka haysto iyo rajadii labaad aan nolosha aan ka helay wariyaha wuxuu weydiinayaa had labadada saaxiibood caafimaad qabaan haan wuxuu ku dhahayaa haaway caafimaad qabaan mii sanado kadibna waxay noqotay macluumaad muusiga barta ardayda asxaab fiican oo jecel way heshay wayna wada faraxsanaayeen kadib haan wuxuu soo darayaa mii buugii uu qoray markay kala furto kadib waxay bilaabaysaa inay akhriso buugga sidii uu akhrinaysay waxay soo gaaraysaa buugga dhammaadkiisa ay sii akhrinaysaa Roog habeenkaas markuu ka soo tagay shil uu galay baskii uu saarnaa Roogna habeenkaas ayuu ku dhintay shilkaas laakiin sheekada buugga uu ku qoray wuxuu ka dhigay inuu Roog shilkaas uu ka badbaaday kaliina uu madax gujug soo gaaray ayna xasuusta wax yar ay ka dhuntay Roog asagana noloshiisa iskaaga noolaa kadib asagoo iska socdo uu arkay buug lagu xayeysiinayay xaflad muusig kadib xafladaas ayuu aaday sidaas ay asagana xasuusta ugu soo laabatay kadib labadooda ay dib isku heleen kadib labadooda ay wada aadeen wadankii riidiis ee Iceland ayna wada tageen meesha rainbowga iftiinka ayna labadooda meeshaas waqti fiican ay ku wada qaateen markay buugga dhameysato kadib waxaa soo wacayaan waxaanu ku dhahayaa ma akhristay buugga sidoo kula ahaay buug lagu iibsiga badan yahay ma noqon doonaa miina wax ku dhahaysaa buugga dhammaadkiisa wuxuu ahaa mid aad u farxad badan aan wax ku dhahayaa saasaan jeclaystay inaan u qor sheekada hadalka hore noogu dhahday ma xasuusataa in hindida cascas markay faraska fuulaan inay marar qaar inay istaajin jireen wayna ka degi jireen faraska waxayna sugi jireen ruuxdooda ee kasoo tageen inay kasoo daahday waxaana laga yaabaa saaxiibkayga inuu faras ka degay muddo gaaban laga yaabee inuu meel nagu sugooyo labadeena kadib mii waxay imaanaysaa qabriga Roog waxayna niyadda ka dhahaysaa meen habeenkaas barafka badan da'ayay inaa saas aan kugu diro oo aad barafkaas aa ku laabatid ilaa haddana waa ka shanlaayaa dembina waa dareemaa ilaa waqtigan inkastoo aan weligii aan ku hilmaamin marar qaar waxaan is arkaa anigoo soo xasuusanayo waqtigii quruxda badanaa aan wada joognay filimkan halkaas ayuu noogu dhammaaday ana ilaawina muuqaalka leeg saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dhig channelka